Sidee u soo jiidan kartaa dareenka qof walba? هاي 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 يا معان هاي 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 يا معان هاي هاي Dareenka qof kasta si aad u hanato ku dadaal qaar ka mid ah furayaasha kuu sahlaya oo ay ka mid yihiin qodobadan. Qodobka koowaad, ku dadaal loola caddeynta yar ee aan qosolka u muuqan haddana la dagaalamaysa wajixirnaanta. Labo, ereyada wanaagga iyo ammaanta leh laakiin runta ah ee aan boonbooninta iyo beenta ku jirin oo aad adeegsato. Saddex, haddiiba dood timaado ama si arrin lagu kala aragti duwanaado, weligaa ku adkaysanin in kaaga oo kii saxda ahaa yahay, kan kalena qaldan yahay, balse ku dadaal isu soo dhoweyn iyo in aad dhinacyo badan qofka wax ka tusiso. Afar, shay kasta oo aad ka hadlaysid afkaaga inta aanad u kala furin hubi inaad xaqiiqdiisa si cilmi ah oo run iyo waaqac ah u haysid, haddii kale dib u dhigo si marka aad soo hubiso aad uga hadasho. Shan, muranka iska jir, waayo muranka shaqsiga kale wuxuu uu ku beeraa canaadnimo iyo inuu dagaal iyo ficiltan galo. Lix, haddiiba aad jeceshahay in aad kalgacal dadka ka kasbato, magacyadooda xasuuso oo ha iloowin. Toddobo, waqtigaaga oo dhan ha ku bixinin talo iyo in aad waanooyin uun bixiso. Ogowna taladu waqti ku habboon iyo qaab ku habboon oo loo dhiga ayay leedahay si ay miro dhal u noqoto. Sideed, noqo ruux go'aankiisa iyo taladiisa fulin ku laran, waxa aanu fulin karinna marka hore aana dusha saaran. Sagaal, qofka aad la hadlaysid u muuji muhiimad inuu leeyahay, laakiin haddana ay tahay muhiimad isweydaarsi ah oo la mid ah muhiimadda aad adiguna isaga agtiisa ku leedahay, si sinaan u muuqato.